الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة عموما تاريخ marka laga warramayo faa'iidada koowaad ee taariikhdu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra waa in lagu waayo arko sida awgeed baynu odhan karnaa qur'aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama saddex meelood oo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qiso kaga warramaya نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون sida daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala dhul badan ayuu qur-aanka kaga warramayaa qisada qur-aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa waxaase ugu muhiimsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamayaa qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waaya aragno inaynu ka qaadanno cibar inay noqoto wax lagu waaya arko cibratun liuli lalbaab lacallahum yatafakkaruun markaynu u fiirsanno markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan in lagu qiyaasto wakhtiga aad nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigu aad u nooshay wixii la mid ah waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaanahu wa tacaala joogta ah sunnadaasi waa sunna haabita bay culammadu ku tilmaamaan haddaad samaysana inaad same helayso haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso maadaama ay caynkaasi tahay qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu fiirsanno qur-aankana in badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay qiso nebi qiso fircown iyo gaal qiso wadaadda inxiraafay qiso yacnii kullu shay baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramaya taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahannay qiso dhammaanteedba innagoo laakiin isdu taagayna mawaadic alcibar meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horreeyey taariikhdooda daraasayno waxay idhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusuurta dambe waa طabca jadiida likitaabin qadiim bay idhahdaan haddaad taarikhda dib u fiirsato baalan la mida kanaad nooshahay unbaad arkaysaa oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso la mida idan bay idhahdaan waa طabca jadiida kitaab qadiimoo hore loo soo maray waayo dunida horey u soo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina dad xunxun dad wanaagsan nooc kasta horey u soo mareen sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay طabca kitaab qadiimoo hore u jiray ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinka hortiin waxaa tegay sunan baa dhulka tegay ee fasiiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi oo fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin fasiiruu fi lardi qur-aanka intay ku soo aroortay haddaad u fiirsato aad baad u tacajubaysaa aayaad aad u tiro badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramaya qul siiruu fi lardi uma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسر فسيروا في الأرض يقرأ أي كبدا إن محاضرة لغو آخريه وإلهي من إلهي هي قولدي دين كهر ريسيبا قار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بوباهنتي دراسة أن كرا حيث قرا هين إن لسدول تاقم مالها عبرة وين لبوباهنتي أممكو حتى دتك أميينتي حتى أممك أن وحقورين أنت بدن إيكوا وحقورين بدن وكم دبا علامات جرى تاريخ تكو علامات صدان مثلا وحا ما هذا الله يراهدا ودعضي قصة دعضي oo weer yaro kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba mahmaahda la sheegay waxa la yiraahdaa ninkan hebel waa aftahannimadu waa maxay wadciga hadda yaala ayuu wuxuu ga qiyaas qaadanayaa dhacdo hore dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba mahmaahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la calaamadiyay waa dhacdo kamid ah dhacdooyinkii taariikhda oo la calaamadiyay gabayga la mid ah gabayada inta badan taariikhda waa lagu calaamadsadaa oo dhacdooyin dhacay oo taariikhiya ayaa gabay yaro koobani uu tilmaama qisaad u tiro badan leh walidaalka waxaynu u baahanahay sideedaba qiso dhammaanteed inaynu aad ugu noqono taariikh muslim mid walba waa ilaahay quraanka mid gaal iyo mid muslim oo kaga waramay مواضع العبر كان يسدح تاجنو أما يسك تاجنو درس كان ما أنت لقون دينا وحلا يدينا كورمه تاريخ أندلس تاريخ ده سري ساعد يبرنا عن وشة كنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورين شري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيبلابين فرشدي أندلس يوجوه الرئيسي أندلس ووطن كي يرى أيبيريا لورين شري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا برتغال أي بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بيسي إسلامية هداي كبحضي سداد بقول تضبية سقاشن كي محرم كودي دي بالله قصو صار آخر الملوك أبو عبد الله نكي هو يدي قبل يقول رسائل هايد بغرطويات سيد الرقة إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبا يوترينيس يبكي مثل النساء قبل يكشرو وأي تلمام الشهادات سيد الرقة إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحليدي مركي وقدم بيسيو كدقاقي معاهدة أيوك كجبحي معاهدة مركي لك على الصحة ودونيه فلوس أكتر قدبوا قصرية دي سي وحيسي مركاسائل مكسود ده ديبال ليلي هو يدي بمركا ويرد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنادات ككوبان سداد كدقيقين ليسي هدانو غيبيو طبعا كي سنادات بحال دقيقان وهيا طبعا كي سنة تاريخ ده كم مدama هل دقيقة يكسو بيجمية مركا وأدكتي تاريخ أندلس إن كجو ورناه سدات دقيقة يوحلا مده عموما أندلس لبي سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول يو سداد يصدم كي هجرية ده وحيهوس إيمانيسي الخلافة الأموية مركي خلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يماشى قبصتي ويل دلني يرى أمويين تكمدا ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay wadankaasi Cabdiraxmaan Daakhil oo saqar Quraysh ninka loo bixiyay dawladdaasi isaga dib u asaastay isagoo qariib ah buu wadanka tagay oo waxba haysanin laakiin dawlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dawlad aad u ballaaran ayuu dhisay dhowr iyo 30 sano baan filayaa 4 iyo 30 sanadood ayuu xukumayay
wakhtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtaba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjid qurtaba oo masaajidka weyn abuu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjid qurtaba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay qurtaba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh maasi tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin oo cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay wadankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu wadankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo la kacabsi leh oo dawlad xoogan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla kacabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400,000 oo majalladood baa maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiih buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadi culimada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasi ah daadiisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجري هشام الثالث نكوي يقانين اما المؤيد بالله لغه المامور هشام كامركي ماشى لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصبوا سميا معد الى لسه isaga islaanu hooya iyo laba nin oo kale taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxa isku qabsaday dawladdiiba nin la yiraahdo Muhammad ibn Abi Aamir waa nin qabiil Yaman asalkiisu ka soo jeedo الحاجب المنصور ninka la baxay weeyaan
xaajibku taariikhda hore waa ra'iisul wasaaraha oo kale ninka uu boqorka warka kala dira ayaa xaajib loo odhan jiray xaajibkaasi taariikhda islaamiga hore xaajibka laqab looma sameyn jirin boqorkun baa laqab lahaan jiray المنصور بالله وحين مقالله المقتدر بالله القادر بالله magacyadaasi boqorada lahaan jiray laakiin xaajibka iyo wasaaraddu ma lahaan jirin nigani maadaama uu dawladii gacanta iskaga dhigay laqab uu samaystay al-Mansuur la yiraahdo isaga qabsaday dawladda dhamaanteed nimankii agtiisa soo marmarayeen uu ka takhalusay saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhawaa ma uu islaa waxbay ku qabsanayaan makiidooyin buu sameeyay bay yiraahdaan saddexdiiba uu ka takhalusay dawladii isaga qabsaday wiilkii yaraana wuxuu yidhi inay yar baa tahay cibaadayso boqorada looma soo galo halkaa ku jir meel buu ku xidhay bay yidhaahdeen inuu iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarkaa lagu dari jiray koox dumara inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan maxaa la yidhahdaa marookaanta iyo maqaaribta idinka arka koofiyaddan yara ku samaysan khamiiska rag iyo dumarba nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidha baa la yidhaahdaa barnaska la yidhaahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yidhahdaan dumarkaa uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadaysan jiray meeshiisaasu iska joogay ninkan la yidhaahdo alxaajib almansuur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa 52 dagaal buu galay intabana wuu guulaystay culimada qaarna 54 bay sheegayaan laakiin imaam dahabi 52 ka dhigaya 52 dagaal buu galay 52 qaswa uu galayba wuu soo guulaystay idan wuxuu ka dhigay wadankii andalus loo oran jiray ee islaamiga ahaa wadan aan gaalba hunguraynin agtiisa cidi soo marin aad u xoog badan imaam dahabi wuxuu ku tilmaamayaa ninkaasi wa kana mawtuhu aakhir as-salah وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيره وحورنا يا نيكا كان جاريدي سوحي هيدبيد وناقة وحي وقدم بيي أعماشي سنة جاريدي سو وناقة وحي وقدم بيي بيهيد فساد كان وحي وقوه الرأيي أفعاشي سنبو يدي waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo camaladii uu sameeyay camala aad u qurux badan laakiin cidib xumo dambe oo badan ka tagay waayaninkani wuxuu sameeyay khilaafo aanu khaliifku talina qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sanadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalix isaguna ahaa dawladii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorradu ay u siiyeen mid ka mid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yiri waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyad billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyadkani qolka kaga jiray buu yiri muayyadkana waa ha iska tago aniga ah buu yiri khilaafadii waliyul ahdi buu sheegtay markaa بعد المؤيد بالله انه يسوي ولايه لا ولايتنا اي wareegtay الدوله الامويه اما قريشين تنا ولايده dadku nooc ma way uga dambeeyeen laakiin kani waa caamir yamaniya marka ma uga dambeynayaan dadku sidii looga dambeeyay awal waxay ku maamulayeen inay xaajibiyiin ama inay sultada yani ra'iisul wasaare inuu ka yahay nin محمد بن هشام بن عبد الجبار la yiraahdo umawiya baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday
caamiriyiintii buu eriyey meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isyidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii la isku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422kii laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirul muuminiin baa soo maray yani waxaad qiyaasi kartaa markaa fitanka iyo mashaakilka taagnaa sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul muuminiin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka aynu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaan uu babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yar way iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo af Carabiga markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysay in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana wuxuu arkayaa muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلده تاريخه waxay yiraahdaan المستعين بالسليبيين buu ayaa مستعين بالله ma hayne inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisii mid kamida oo ah سليمان كان هشام كيبا walaalaatii guriga lagu xidhi jiray markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-Fata waadix oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Muhammad ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskureerka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yidhaahdaa aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa u ahay Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayaa u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo waxoogaga barbarka oo haysto Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kale la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacantayada soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta
ودول كي يرى جزية بحين شري وعبد الرحمن الناصر جزية سين شري ومن بعد هنا الحاجب المنصور با جزية كغاد الشري نكي جزية بحين يبين انت وتجان بي وحيد هذا نوحن ربنا يناد نلفرته وضنكي او ماشي نلقبته امير برشلونة وحيد واصفي عن لكن بالشروط شروط باندغانيا شروطaasi baan idin kula duulaya waa maxay baa la yiri shuruudaadu waa laba nin oo daas ka soconaya la ciidan ma haystaane wuxuu yiri ciidamadiina iyo wixiina kale marka keensataan anigu dagaalku intuu socdo buu yiri maalin kasta oo dagaalkaasi soconayo 100 dinar oo dahabiya baan rabaa oo boqortooyada ay leedahay cashuura maalin kasta oo dagaalku soconayo dawladda Barcelona in la siiyo 100 dinar oo dahabiya kow ciidan baan idin siinaya ciidanka aan idin siiyo askari kasta oo dagaal gala waxaan rabaa 1 dinar oo dahabiya in maalintii la siiyo askari kasta oo dagaalka gala 1 dinar oo dahabiya inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo haddii aynu jabinno khilaafadii naasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri madiinada Salim la yiraahdo oo ah mudankii uu furtay Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan Thalith ninka la oran jiray dhulkii uu furtay magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta la igaliyo afarta sharti hadda aqbalaysaan way idin la duulaya boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 dinar oo dahaba askari kasto caynkaasiya waliba askarta wadankii wuxuu cilaamiyay in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariyaa tatawacaya buu yidhi duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta 1 gini baa la idin siinaya dadkii baa askar bay soo qoreen waxa la yidhaahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkii baa intiiba uu ka aqbaleen waxay yidhaahdeen intaaba waa kuu saxeexanay ee la duul intii markii loo saxeexay ayay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Suleymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labadan nin soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-Fath al-Waadix ba makiida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhalusay meeshii isaga isu dhigay laakiin dawlad al-Aamiriya fikradeedii buu qaato wuxuu yiri war kaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadii nimanka amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريga ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciya kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii waa Suleymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay Fath al-Waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Suleymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay Fath al-Waadix ayaa meeshii qabsaday Suleymaan ibn al-Hakimna waa la eriyay gaaladeeg sibay baratay Suleymaan ibn al-Hakam isna wuxuu yiri bal maliku qishtaala dib ugu noqo ha gaal aan inaad gura dib u laabto wuxuu tagay alfansihi ka talin jiray qishtaala ee berigii horena saaciday mahdigii la riday Maxamed ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar ninkii meesha kala qaaday waxay yiraahdeen meeshii nalaga qaad de mar damaan rabnaa inaad nala duusho saasmiyaha bal saddex cashay suga buu yiri saddex casho hal ay sugo saddexdii cashay uu joojiyay ayuu boqorkii qashtaale haystay nin buu soo diray qoladii kan inqilaabtay buu u tagay uu nin u diray wuxuu yiri halkan waxa ila jooga Suleymaan ibn al-Hakam oo raba in la soo duulo waxooga ana de ballan qaadana waan ka hayaa maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siinaysan dad rabtaan inaan la soo duulin waxa la yiri waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaala qaado
ha soo duulin nimankaa ha soo raacin boqorkii qishtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala doorransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalla waaweynee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkanna uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalcaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhamme dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkiibuu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qolo eryanisay muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayeen waqti yar kadib ayay qoladii barbariyiintii ninkan waday baa waxay dhaaheen horta heedhaa maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan umawiga ee sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaankaba ka takhallusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiili u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtada billah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaal badan baa dhacay kullu hada maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay markii ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abalxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxaa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibn aljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yaman iyo carabta qaysiyiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo waa ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo balorasiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badani waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan
markii ay dhacday in dawladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ay culimmadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intanna ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xooggan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dawladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 oo kilomitir isku wareega inay tahay yani waddankii Soomaaliya 627 buu ahaa Soomaaliya in leeg rulahaan marka la eego Soomaaliya oo 22 dawladood noqoto qiyaas reer waliba intii yareeyay oo haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een banu Abaad niman la yiraahdo oo Ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday niman banu Ziri la yiraahdo oo Qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday banu Jahwar oo qaadigeenu ka warramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday bani al-Aftas niman la yiraahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhadhow bani Dhannuun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow bani Aamir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo banu Hud oo iyana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yare arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta magaalo waxa haysta waana laqabka la yiraahdo amiirul mu'miniin buu haysta ciidan buu leeyay wasiirru leeyay lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu ku yaalo safiirru leeyay uu dirto nin waliba dawlad wixii ay sheegan jirto dhan ayuu sheegtay dabeetana waxay noqdeen dawlado yar yar oo 22 oo 22 kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaaleed ee markaasi ka xoog waaweyn mid kamid ah uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashiid sidoo imaam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها نغت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا نغت جيب مغاعيدا انترادا بدن لا معتصم يا معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضب بالله المؤيد بالله مد ولبا لقب كيما دحتويدو لهان جرتay buu la baxay waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la baxeen wa alqab mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed oo aan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kalhir yahki intifakhan sawlat al-asad بعض الروايات صورة الأسد بينها وسيدي بيجي أن على هذا عرّي جير كاللي بحس ككعية عرّي هدو جير سككعية دي اللي بح نقول ما يوم وبصدقون أنت جير كسككعيسي جير اللي بحسوه كيسي بيلا مدين يعني الدولة ده معها وحب لما وقت كان وحي تاريخ الله يقانه عصر ملوك الطوائف أفر بقول يلا بيا لباتنكي إلا أفر بقول يسدحي سديتك بالسعودي أفر بقول بيا لباتن إلا أفر بقول سدحي سديتك ووقت إلا بحين مركب ملوك الطوائف ملوك الطوائف oo qaybaha aynu soo sheegnay ee labaatanayada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen
kow dad taraf jecel bay ahaayeenoo nimcaystay wadanaad u lacagaystay oo nimcaysta baa la googoostay dabeetana waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiyo wax la cuno un laga shaqeeyo cuno un laga warramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaadee waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yaryara oo dawlad waliba colka ugu weynaa ay leedahay uun yahay kan yara kale u jaarka reer hebela meesha yara ay haystaan waxaa soo baxay bay yidhaahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuq iyo wixii la mida waxyaabaha aadka u foosha xun leh soo korayna waxaa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yaryar ka midi waxay dhabarka saartay dawlad ka mida dawladihii gaalada ee roonroona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha kasii foosha xun leh meesha tan ka soo baxay waxaa ka mid ah dawladaha yaryari intooda badani waxay bixin jireen jisya si ay u jiraan yani waxaa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiya oo jisye qaada kuwan iyagaa jisye bixin jiray waxaana la siin jiray meliku qishtaala iyo boqorada kale u dhodhow ayaa jisya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba uu cashuurta ku soo dalaciyo lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinayaa nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryaroo markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleedu ku tirsan iyadana intuu lacag siiyo uu yidhaahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayoo dhammina waa magaalo aan kan ka riixda iyo magaalo kaasi ay ga riixdo xad bay gaadhay ibnu xasam ilandalusi caalimkii la odhan jiray uu yidhaahdo weedhaadu laadica wallaahi low calimuu ana fii cibaadati الsulbaani tamshiyatu umuurihim labaadaruu ilayha فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين ويداهدو إلهي بان كل دارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية cibaadati sulbaan koroska inay caabudaan in arrimahooda ugu fududaanayaan oo arrintu ku kala soconayso waa iska caabudayaan buu yidhi wadano madaxdaa buu yidhi haddii maanta la yidhaahdo koroska caabuda arrimihiisu waa kala sahlanaanayaan aad bay u samaynayaan buu yidhi saasi daraaddeed bay dadka muslimiinta xaramkoodii iyo dumarkoodii iyo abnaadoodii iyo raggoodiiba iyagoo maxaabiisaa loo qaadayaa buu yidhi dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinayaa buu leeyahy iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaquus laga dhex taagayaa buu leeyahy ilaahay dhammaantood ha nacdalo oo seef suyuuftiisa ka mid ah allah ku itixaamo buu ku gebagabeeyey waa wadaad cadhooday waxaa ka muuqata yani wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan duwalkan yaryari waxa ay ku caanbaxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dawladnimo sheegtay dawladdiisa yari inaanay jiri karin ilaa iyo dawlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xigee muslimkaa inuu col la yahay ka foge kale ee gaalkaana inuu lacag siinayo ama jisye uu bixinayo casriga caynkaas ee andalus dhibtaasi ay haysatee sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd haddana taariikh islaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtigu ibn cabdilbarri noolaa 463 buu dhintay casri tawaif dhexdiisu dhintay waa waqtigu noolaa abulwaliid albaaji 474 buu geeriyooday waa waqtigu noolaa ibn xazam 456 buu geeriyooday waa waqtigu noolaa ibn xayaan 469 buu geeriyooday waa waqtigu noolaa ibn sayidi 485 buu geeriyooday waxa culamadii ugu badnaa ee taariikhdu ay tilmaamto casri tawaif bay noolaayeen muluku tawaif waqtiga kale ay talinayeen bale الإمام أبو الوليد الباجي باجدا لون إسبانيا وباجا ومقالة يروكو تالله برتغيسكا أبو الوليد الباجي عالم كان لورين شري مركو أركيد دول كان يريرا مسلمين تينيسي وكالدات سيينيو دبعتها هيستا صدن سندود بودح سعودي ساقو لمي دوبا صدن سندود بالله إذا مقالة كستو كترسانا مميل كستو أندلس كمدا صعد بو كمري isagoo ku dhawaaqayay dadkan muslimiintii inay midoobaan oo la isu yimaado waa ka ibn hazm
كتاب كيس نقط العروس لا إله هذا نقط العروس كتاب كيس لا إله هذا بوحيدي فضيحة لم يقع في الدهر على مثلها حترتبوا فضيحة أن تاريخ ابن آدم كهروس وشيقين بويدي 4 رجال في مسافة 3 أيام تسمى كل واحد منهم أمير المؤمنين بويدي أفرنين ومسافة 3 maalmood loo kala socdo mid waliba intuu meel yar ka degay buu yiri oo sheegtay amiirul muuminiin inuu yahay muuminka oo dhan ba amiiru yahay afartan mid waliba muuminka oo dhan amiirnimadiisa sheeganaya 3 casho socda baa lagaga talaabaa meeshay degay ninka caadiga maalinta 40 kiiloomitir buu socdaa 3 casho waxa laga yaabaa 120 kiiloomitir in la socdo waa 120 kiiloomitir dhul ah oo afar amiirul muuminiin joogto oo nin waliba meel ka talinayo وخطب لهم بها في زمن واحد وأفر تبابو يدي وقت قرى خطبة جمع مد والبا أمير المؤمنين يدي هاي لو قدوا عينيه أو خطبة لو آخرنا يبولي مرقا سوحو التلمام أفر تكوي كلا هاي مدوا خلف الحصر يبو يدي إشبيليا على أنه هشام المؤيد واحد شراه هشام المؤيد كي وعلماء تاريخ دقيب كم إذا قبان وقت هرد انتي ayaa waadan baa uu nin qaadiyo meel haystay uun baa nin ku yiri waxaan arkayba Hishaam masaajid yar halka fadhiya dabeetana nin baa loo keenay war Hishaam kan yaa garanay inuu ninkan Hishaam al-Mu'ayyahay mid la yiri shaqaalihiisa baa la raadiyo waaba isagii baa la yiri dib baa loo magacaabay isagoo boqorkii al-Mu'ayyid billah bari horana taariikhda qoraysa inuu dhintay markaas wuxuu leeyahay Khalif al-Husari baa ninkan la oran jiray oo isagoo magacii ninkii dhintay sitaba boqornimo loogu khudbadaynayay ka labaadna waxa uu yiri Muhammad ibn Qasim ibn Hamoud وجزيرة الخضراء ماشى الله يدعو مركل الله صاق قلبا أندلس حاجة هو طنجة هي مركل الله صاق قلبا قابتك وهذا اللي يمدا الجزيرة الخضراء ما الله يغنوا محمد بن إدريس وسجن مالقة مقالة الله يدعو لو أخذ بديني إدريس بن يحيى أو شنترين مقالة الله يدعو يعني وحط المام يا ابن حزم إن عيب تهيان لا قبل كرين إن أفر بغليا 20 كيلومترين يشان أفر أمير المؤمنين كصباحان وحقا دي وقتي أندلس تاريخ ده دورنتي ما ستر بدن إلى هذا ووقت مرر بدن أتصرون سو آخر يدا مكور كدو دي بدنيه وهي مركز منقشه طليطلة دعيتان كيديو كله طليطلة وعاصمة دي برجي هوري سبين لو قلت لين شري المسلمين تمركي فرتين عاصمة القوط بركي هوري هانشرتي الثغر الشمالي بي علماء التاريخ تكت المامان ان ملك الفانسو السادس مركو قبسنا يي نمان كلام مسلمين كل الدولي وعدول المسلمين ولا قبسنا يي ونمان كلام مسلمين كل الدوليان عدة قبسنا سنة ويهي ان ملك قشتالة تاريخ الاسلامي هو اللي ما اركي شري إن المسلمة وكسر دوله كوحك الله مسلمة وحلا قبنا يونو يهنين قال دينو قفصده ماشة بل ملك قشتالة أنتو كبري مركزي والفنس السادس يسقوا واجي هره أبيه مركو بقرطوية ذكرت أنت صدق حنين ولا على كوك بصدين مد بعد بتنا اللي بدي كلامه سؤال يده ماشي كقاضي الفنسان يسقوا قحونتيه بطليطلي يمي طليطلي وشوق شري بقرك طليطلي سود ويا مالها نردم بتصتصي وحيادا مركو صا جا والنقطة يا ولا الكيد انتي مركو ولا الكيد انت بقرطوية دي سجى دي بلوسية نكى هل كان قحونتيه كوا هان شري دي بلاد دري ماشي تجي ماشي بدي بقول سود ولا مركو ماشي قبصد الفنسان هن المدو أفريقيا شو وكل سيسويان ماشي وقحونتيga ka aha ee uu shalayto qaxoontiga ku aha ayuu dib uga soo duulay markii uu la saaray meeshii dib loo saaray wuxuu gaarsiiyay markaasi xad uu gaarsiiyo in jisyada markuu ka qaado yani culimada taariikhda ayaa maasida markay ka waramayaan maasida qaar kood yani culimada taariikhda kamid waxay warinayaan inuu soo diray nin kamid ahaa boqor wasiiradiisii oo yiri lacagtan la isiinayo jisyada si fiican u soo baad lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fidda marka lacagta laga qaadanayo nimankan naaqidiinta ah ee baa jira waxaan eega inuu real yahay iyo waxde macdan aan real ahayn inay tahay marka lacagtii markii laga ururiyay wixii
almuctamid billah kii la odhan jiray meeshiisa markii la joogay ayuu wuxuu ku yidhi boqorkii arrin kaluu isoo faray waa boqorkii yaraa qashtaala haystay waa maxay buu yidhi arrinta kale uu soo faray boqorkii wuxuu yidhi waxaa gabadhaydii baa umulaysa dabeetana nimankii qisiisiinta ahaa wadaadadii baan la tashaday tale waxaa la ii sheegay in loo baahan yahay si aan muslimiinta uga xoog bato oo aan ugu wada qabsan karo in islaantaydu ay ku umusho masaajidka qurtuba waa codsi uu soo qortay maliku qashtaala boqorkii almuctamid billah ishbiliya ka talin jiray ayuu wuxuu leeyahay qurtuba isku haystay buu wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay boqorka habartiisii baa umulayse inay ku dhasho masjid qastaala masjid qurtuba masaajidka weyne qurtuba yani waxa tan keenaya waxa weeyaan waa markii uu dareemay dadka kale inay dad kala lumay oo liita oo midba ka ku xiga iska eegayo oo midna aanu keligii markaa iska celin karin ama aanu wax iska rabi karin uu yahay uu ka qabsaday magaaladii tulaytile la odhan jiray ayaa codsigiisu xadka kan gaadhay taasi waxay sababtay inuu waxoogaa naqwa qaado ninkii safiirkiiba uu dilo loo soo diray oo dabeetana rabshada ay dhacdo oo ninkii duulimaad soo qaado oo mashaakil tiro badan ay u dhaco ilaa xad markii dambe boqorradii yaryara ay isu yimaadeen oo yidhahdeen war maxaynu samaynaa waddankiina difaaci kari mayno markaasay yidhaahdeen aanu nasriga aan soo waaridno war aan caalamulislaami dib u eegno shimaali africa ama shimaali afriqiya north africa dowlad cusub baa kaga dhalatay oo dowlad almuraabitiin la odhan jiray oo markaasi uu ka taliya nin salafi ah oo la odhan jiray cabdillahi ibnu tashfiin yuusuf ibnu tashfiin nin la yidhaahda uu ka taliyo waa oday 80 jir ah oo faraska fuushan haddana dowladdii ninkaas ka talinayay bay u dirteen caawimo inuu soo siiyo dabeetana haddana iyagii baa dhexdoodii shakiyey waxay yidhahdeen hadduu inaga ka ciyaarmu ina qabsadaadee diiba uu ninkan inaga riixaarmu isagu meesha qabsadaa maalintaasi waxay ku tilmaamaan almuctamid billaah ibnu cibaadkaasi go-aan adag buu maalintaa qaatay wuxuu ku yidhi wallaahi laa narca inaan geela ku raaco saxaaraha ayaa ii dhaanta buu yidhi inaan khansiir raaco yacni inuu ninkaasi meeshaba isku qabsado uu geela ii dirto baan ka doorbidayaa in qashtaale intuu ii qabsado khanaasiirta la raaciya buu leeyahay dabeetana waxay qaateen go-aanka in muraabitiinta loo yeedho yuusuf ibnu tashfiin iyo ciidamadiisii baa yimi waqcadda caanka ee zallaaqa loo yaqaana ayaa dhacday waa waqcad taariikhda aada ugu caana dibna loo jebiyey qashtaale iyo nimankii ka talinayay markaasi dib loo jebiyey isagaa dirqa ku baxsaday ciidamadiisa dhammaantood meeshay ku jabeen qisaska taariikhiga ee masaa'ilkan ku saabsiisan ma rabo inaan balballaadhiyo laakiin waxa aan rabaa inaan tilmaamo mujtamacu markuu dhexdiisa isagu uu isnaco uun dabeetana uu noqdo yaa kursiga ku fadhiya kadibna tuulo waliba madaxweyne ay samaysato waxay iska ilaalinaysaana ay tahay tuulada kale ku xigta isaguna uu waayo weligiiba magac dowladeed ha sheegto lacag ha samaysto wax yar ha qorqoro laakiin uu waayo muqawamaat alxayaa qaabkii loo noolaan lahaa uu waayo oo noqdo waxaan isdifaaci karin ama waxba iska celin karaan waxay noqonaysaa inuu taxta saytarati dawlatin ukhra dawlad kale inuu iyada ku hoos noolaado oo wixii loo yeedhiye kasta uu aqbalo si ay tiisan yari u jirto 22 dawladood baa muddadaasi yar meeshan ka talinayay oo midba ka ku xiga uu iska ilaalinayay oo dawladan kale ee meesha taala uu rabay inuu haddana nimanka waxa sameynaya dhan kale faqri ma hayn xolalaani ma jirin waa waqtiyadii ay ugu badnaayeen waa waqtiga yawmutiin ay dhici doonto waa taariikhda waa maqasheen yawmutiin kala sheego nin boqorada kamid ah ayaa islaantiisii boqortooyada xagga sare fuushay dabeetana iyadoo roobda-ay bay waxay aragtay dad wadada lugaynaya oo dumar ah oo cagaha dhoobo intay ka yara fayteen dhoobo dhex socda markaas waxay tiri boqor aniguna waxaan doonayaa inaan dhoobadaas oo yara batalaqsado dabada u baxo qofka bini aadamka waxa caadiya inta ka maqan uu bini aadamku moodaa inay tahay nimcada rasmiga imka ninka baadiyaha jooga ee aan waxba haysanin
talow daaraha dhaadheer mar uun yaa fuula buu isleeyahay kan daaraha dhaadheer fuushanina yaa buuraha mar uun kora buu isleeyahay soo carcarara bannaankaasi oo hiita yar buu dhisanaya waa nolosha bini'aadamka caadiga ah yacni qofba inta uu haysta mooyaane inta kaluu raadceeya u arkaa inay raaxa tahay oo inuu soo sameeyey waxaas islaantan boqorku qabo 800 hablood baa la yidhahdaa dad ku dhadhow baa shaqaalaheeda ahaa u shaqaynayaan waxay jeclaatay inay dabadda u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatul muluuk in loo sameeyo dhoobo boqortooyaha loo sameeyo buu yidhi waxa la soo gaday wadanka wixii miski iyo cambar iyo wax la isku udgoonayo dhan yaalay dabeetana hal la cajiimaa la yidhi wixii baa la isku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey aagaamo yaryarna waa loo soo iibiyey ay xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay markaa dhoobo laga sameeyey miski iyo cambar iyo waxaa waa kuwa culammada taariikhdu sheegaan inay beri bay islaantii isqabteen markaasay tiri wallaahi maa ra'aytu minka khayran qatu weligay wanaag kaama arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yowmu tiin ayuu tilmaamay baa la yidhaahdaa ibnu cabbaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsu ku dhintay isagu dowla muraabitiin baa qabatay waa la xidhay magaalo yaroo maroko ku taalla ayaa lagu xidhay magaaladaasuu ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxaa ka mid a maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyey meeshii dowlado kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxaa ku dhacday maalin ciideed buu wuxuu arkay caruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dee dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruufa la yaqaano islaantan uu yomutiinka ku taamayey oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa boqortooyadii iyo nimcadii waxaa ka dambaysay qaxoontinimadaasi isna uu xabsi ku jiro islaantanina ay reeraha u tosho marada ay u tosho maalintii dambe caruurtiisii u timo gabay aad u macruuf u tirinayey oo marka dambena uu ka gabyayo cagaha hablihiisa buu ka gabyaya uu leeyahay waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yani maalinna inaanay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay abuu tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu odhanayo yani ninka iga dambeeyow adduun yani farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahay kabalaantaas gabay abuu tirinaya waxaan uga jeedaa may la'ayn dhaqaale lama la'ayn ama dad aan hanti haysan may ahayn dad dacfi kale ka jira may ahayn laakiin waxa ugu badan ee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhex galay iyo kuraasidaasi yaryara la isku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaa ee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dowladaha kale dhabarka la saaro oo la isku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu soo nidhi taariikhdu waa bayjaj maalinba bog la rogoo la akhriyo bog kastoo aad joogta waxaad arkaysaa bog horeo taariikheed oo la mid yahay dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200,000 kun iyo 500,000 kun inta meel fadhiistan yidhi dowlad baanu nahay